gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug Axmed Xuseen Shire Buqaari ayaa maanta xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxaal. munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka Mudug ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel, wasiirka warfaafinta Axmed Shire Faragle, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda Galmudug, wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka Puntland, labada gudoomiye ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland, saraakiisha laamaha amniga iyo marti sharaf kale. gudoomiye hore ee gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxaal oo munaasabadda xil wareejinta ka hadlay ayaa sheegay in gobolkan shaqo adag laga soo qabtay taas oo ay ugu badnayd dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah, wuxuuna tilmaamay in gudoomiyaha cusub looga baahan yahay si dhamaystiridda shaqooyinkaasi. ayaguna shaqo aan caadi ahayn bay qabteen, hadday noqoto la dagaalanka cadowga argixisada iyo hadday noqoto deegaanka nabadiisa way ka shaqeeyeen. madaxweynaha warbixinta inta uga baxo gobolkaani maanta wuxuu marayaa horumar, waayo maayaradayada iyo annagu waxaan nala kugu yimid degmo maanta leh laamiyo islaaf dhaafaysa. wadooyinka laga bilaabo xilliga aan imid wixii ka horeeyay waddo ma lahayn magaaladeedu, wadooyin xanibnaa oo la isku mari waayay baa jiray oo saddexaas waddo aan furnay oo aan u bixinay nabadda, waddada ka timaada laabiga iyo waddada cagaar weyna tagta iyo waddada ka timaada dhinaca airboorka oo Buulabacley soo marta. saddexaas waddo oo hore aan uga soo shaqeynay, maayirkii hore aan wada joognay, xirsi aan ka soo wada shaqeynay. waxaa hadda socda ama dhammaaday waddo la rabo in la gaarsiiyo 12 kilomitir iyo mid dhamaatay oo airboorka tagaysa. laba waddo dhamaatay, labadaas waddana runtii waxaan uga mahadcelinayaa hay'adda dhistay iyo maayir Cabdiraxmaan. gobolka inta aan joognay waxaa ka socda gaab uusan ka jirin nabadda waxaan u tagnay jariiman baa loo tagay, Galdogo baa loo tagay, meel walba loo tagay. nabaddaas ujeedka laga leeyahay qof walba uu fahmi karaa, meel aan nabad ahayn horumar ma gaadho. maanta horumarka ay ku tilaabsanayso dadkii naga horeeyay oo dhaliyay annaguna meeshii aan ka soo wadnay. waxaan rajaynayaa gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha kale cusub oo la keenay doon laba dhinac, labadii maayir iyo gudoomiye ku-xigeenkii baa u jooga oo shaqadii ka warqaba meeshay maraysay inay la sii wadi doonaan oo la hubin ayagana uga mahadcelinayaa ayagoo kartidooda iyo aqoontooda kaashan doona. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka Puntland Cabdullaahi Cabdisalaan, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee Puntland Maxamed Xasan Waloore iyo duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub iyagoo kula dardaarmay inuu sii dardargeliyo shaqadii adkayd ee gobolka laga hayay. aad iyo aad farxadna ugu tahay inaan saakay kulanka xil wareejinta ah oo labada gudoomiye gobol la kala wareegnayaan saaxiibkay mudana Isxaal. wax badan baan soo wada shaqeynay asagu nin aan aad iyo aad u naqaanay bay ahaay. insha Allah saaxiibkay Axmed Shirane waa soo dhaweynaa, waxaan ku soo dhawow gobolka Mudug oo marxaladihiisa hadda meel ka fiicnaanta meel ka fiican tahay aysan joogin. insha Allah waxa laga rabaa inaad mas'uuliyadda adag oo aad u qaaday inaad sidaad bulshadan iskugu wadi lahayd mas'uuliyad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo bulsho ahaanba, intaas waa laga rabaa. sida aan la socono gobolka marxalad adag baa ku soo fool leh oo nimankan argixisada iyo ummadda dhibaatada aad ku fara badan ku haya oo deegaankan wisilde dhibaatooyinka ka geysteen haday magaalo tahay iyo tuulo la gubay iyo haday xoolo tahay haday afduub tahay iyo waxyaabaha tirada badan. waxaa laga rabaa sida isku wadi lahayd bulshadaas ugu shaqeyn lahayd inay wadan iska xoreeyaan lalaga baahan. sida aan la socono anaga ka dawlad ahaan Puntland mar walbaba waanu garab taaganahay la dagaalanka argixisada oo marxaladda koobaad iyo marxaladda labaad iyo saddexaad bay noqotay. waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo koobo laba kelmadood oo midna tahay mahadcelin oo aan mahadcelinayo gudoomiyihii hore saaxiibkay Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxaal oo aan muddo 3 sano ku dhow ka soo wada shaqeynay gobolka Mudug oo runtii xaalad xasaasi ah ku jiray xilligu yimid, u baahnaa nabadgelyo, u baahnaa wacyigelin, u baahnaa isku wad gobolka Mudug dadka wada dhashay oo wada degan noloshooda in loo bedelo sidii ahayd si ka duwan. runtii waxaan aaminsanahay inuu ku soo shaqeeyay duruuf aad iyo aad u adkayd oo amniga ugu horeeyo
oo ahayd in la kala dhiciyo la kala dhex galo la isku soo jiido la isku soo dhaweeyo dad wada dhashay oo runtii wax isaga maqan aysan jirin markaasna cadow iyo shaydaan iyo nafta bini'aadamku ay isku diraysay xaaladii gobolkan ugu yimid waan xasuusanaa sidii ahayd dhammaantiinna waad ogtihiin waxaan ku ammaanayaa heerkii uu ka gaaray dagaalkii argagixisadu ay ku waday gobolka mudug gudihiisa iyo kii duulaanka ahaa labadaba door ka qaatay uga mahadcelinay waxaan rabaa inaan idhaahdo mudane gudoomiye axmed xuseen shire bukhaari soo dhawow waa kuugu ducaynaynaa xilka ilaahay ha garab galo waxaan ku soo wada shaqaynay marxalad adag heer saldhig iyo heer degmo iyo heer gobol laamaha amniga kala iyo dhammaan maamuladaba maantana waxay noo maraysaa inaan ku sii dhownahay ilaahay fadligiis in hal nin oo mas'uul kaligiis inuu lugeeyo wax yar baa naga xiga ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa sheegay in galmudug ay diiradda saarayso horumarinta maamul daadejinta isagoo la dardaarmay gudoomiyaha cusub ee maanta xilka la wareegay inta kadib maanta xafladeenna waxay ku saabsaneed xil wareejintii Isxal iyo Bukhaari oo gobolka mudug dhinaca galmudug isku bedelahay waxaan rabnaa inaanu saaxiibkeen Isxal aan sagoontino taariikhdiisii ama isaga ka sheekeeyay saaxiibadii kale oo hadda la shaqeynayay oo labada dhinac ayaa ka warbixiyay marka waxaan ku leenahay jazakallahu khayr waxaan ku rajaynaynaa xilkaad maanta haysi xil ka sii weyn ku rajaynaynaa waxaan jeclahay marka inaadan meel cidla imaan gudoomiye waxaa timid meel hawl badan laga soo maray shaqo badan laga soo qabtay oo rag xoog leh oo runtii wax garad ay ka horeeyaan waad ogtihiin shaqooyinka baa inii qaybsanay gaalkacay waa mid laakiin shaqooyinka baa la inii kala diray laakiin dadku waa isku dad deegaanku waa isku dal waxaad kala leedihiin shaqooyin cayiman ilaa federalismkii baa noo keenay laakiin dad walaala ah iyo dhul mid ah oo wada degan baa tihiin aragtidaasna waa aragtida hadda aad ku shaqaynaysaan waa mid aad ku guuleysateen waa mid aad uga hortageysaan cadowga meel kasta ka yimaado taas baan shacabkiina ku guuleysanayaa maamulada aan ka soo jeednaana ay runtii muxuu ahaa gacan ku siinayaan Saadaq Siciid Nuur raadiyaha iyo telefishinka Galmudug gaalkacay